dhalinyarada maamulka magaalada Qabridahar ayaa sameystay astaanta cusub ee kubadda cagta ee magaaladaasi Qabridahar. Astaantan ayaa noqonaysa mid cusub oo ay sameysteen dhalinyaradaasi. Munaasabadii daafurka astaanta cusub ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar kaasoo bogaadiyay hindisaha ay kooxdani ku sameystay astaanta cusub. waxaan galabta halkan ku daafurnay astaanta kooxda kubadda cagta ee magaalada Qabridahar oo haatan halkan ku taal aragto runta astaan aad u qurux badan astaamaha caalamiga ee kubadaha kooxaha kubadda cagtu ay leeyihiin u dhiganta oo qurux badan macnaha ay leedahayna uu ka weyn yahay funaanada aan xiranay hadda macnaha ay leedahay waxa weeye koow dhalinyarada magaalada Qabridahar oo hadda barnaamijka hormoodka ahaa iyo kuwa kale ee ku xigi doona ee magaalooyinka kale waxa ay ku abuuri doontaa dareen wadaninimo oo la xiriira magaalada inay jeclaadaan marka magaalada inay jeclaadaan deegaankooda ay jeclaadaan ba ku xigaysa oo halkan ka laga doorto xulka qaranka loo doorto deegaanku ishada ku xigta maalinka hore Qabridahar buu badda u ciyaari oo uu u dhididi maalinka xigtana deegaanka Soomaalida u dhididi maalinka dambe dalka Itoobiya ka tirsan yahay uu badda u ciyaari oo xulka qaranku galaya marka dhalinyaro far badan oo talent leh oo kubadda cagta yaqaana oo deegaankeena waxa jira ilaa iyo hadda aan maaragtay aan xitaa ku hawooninba maadaama sportigu uu ahaa wax baabaasan oo deegaanku ay ahayd dhalinyaradu wax maaragtay dhaqanada xunxun xashiishada waxyaalaha diinteenu naga xarintay oo ay ciyaalo suuqnimo kale waxa ay dhalinyaradu ku mashquul ku ahaayeen waalidiintina ay kadeednaayeenba in horta taa laga baxo dhalinyarada la jiheeyo iyo qayb ka tahay koow qaybta labaad waa qayb ka mid ah shaqo abuurkii loo sameeyay dhalinyarada sanadkan oo xafiiska sportiga iyo dhalinyaradu uu hogaaminayay marka funaanadahan iyagoo ilaa hadda kun ku xabo ku dhawaada yaa la taabacay magaalada la geyn doona la iibin doona dhalinyarada magaalada samaysatay loogada dhalinyarada magaalada iibin doonta qofka reer Qabridaharkii waa funaanad uu xiranayo oo kolku meelaha maraya ku muujinayo inuu reer Qabridahar yahay qof kastana sidaad ogtahay dhulkiisa uu jecel yahay kulligeenba marka qofka magaalada ka soo jeeday inuu muujiyo oo tartanka ina dhex yaala magaalooyinka dhex yaala uu noqdo mid ciyaaraha ku salaysan inuu noqdo uu noqon mid qabiil ku salaysan mid dekanooyin hore ku salaysan inuu noqon bay ka caawinaysaa inay ku tartamaan sport wada ogtahay tartankii sanadkii hore dhacay lagu qabtay jijiga xabaasadii uu kiciyay iyo shacabka siduu u jihey wada ogtahay marka waxa ka khaldana waa la sixi doonaa waxa ka saxsan sheekooyinka la dhex gelinayay waxaas waa la saar doonaa magaalo qabiileeyahay ma jirto marka bari ka maalin arrinta waxay anfacaysaa 11 wiil oo laga yaabo inay 7 qabiil ka soo kala jeedaan ama 6 qabiil oo isku magaalo ah ba isku funaanad u dagaalamay kubadda u ciyaaray oo halgamay waxay keenay isjacayl bikeen waxay keenay isdhexgal waxay keenay in kooxdu ay metelayso magaalo inay metelayso iyo keenay marka dhinacana waa arrin soo korodhay dhinaca kale shaqo abuur dhalinyaradii funaanad kastoo la iibiyay hadda kun xabaa la keenay 2,000 oo kale soo daabici doona ama 3,000 oo kale dhalinyarada iibinaysa ee dukaanay furan doonta ta saddexaad waxa weeye dhalinyaradeennu waxay hadda xitaa kuwa sportka jecel ku mashquulsanaayeen Arsenal iyo Manchester United iyo Liverpool iyo magaalooyin aan magaalooyinka ahayn waxa laga sheekeynaya Arsenal London bay ku taalo koox London ku taalo weeyaan Chelsea waa koox London ku taalo magaalada Metasha waa laba qaybood oo London Manchester United iyo Manchester City magaalada ka soo jeeda Liverpool magaalo weeyaan marka magaalooyinkan tiimaka ciyaaraya ee qofku laabta garaac ayuu leeyahay Liverpool baan ahay inuu dhalinyaradu ay tiraahdo Liverpool ma ihi anu Qabridahar baan ahay goday baan ahay wardheer baan ahay jigjigaan ahay maxaa shinilaan ahay inay maaragtay sida u dareemaan doolaan ahay inay sida wardheer baan ahay shilaa baan ahay macnaha deegaanka ma markaro magaalooyinka oo dhan laakiin inay magaalooyin caasimad ah oo tiimam tartamaya ay yeelasaan waxa darad noocaas aan u gudubno inaga anfici doontaa dhalinyarada ciyaaraysa kuwa daawanaya kuwa dharka daabacaya kuwa iibinaya kuwa meelaha shaaha lagu cabeeyay sameynaya kuwa wararka ka diyaarinaya business dhan iyo horumar dhan oo dhalinyaradu ku jihaysato oo shaqo abuur ayuu runtii ay noqon doontaa marka in mustaqbal dhalinyarteeni ay hesho oo halka laga sameeyo oo adduunkii u furmo oo kuwa kalena ay didiilo yeeshaan ay ku daydaan ayuu naga anfacaya sidoo kale waxaan isaguna wareysanay wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida Ibrahim Cabdiqaadir oo ka hadlay daafurka astaantan ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah maadaama ay jirtay maxaan la hadayay in sanadkii kale 2012 loo soo wareegay
designadii iyo looyooyinkii la diyaariyey fulintoodii 2012 ayay u soo wareegeen qaabka loo fulinayana wuu ka duwan yahay qaabka projectiga caadiga ee dawladda loo fulinayo waa qaab dhalinyaradii shaqo abuur looga dhigayo nimanka tusaale ahaan dhalinyarada maamulka magaalada Qabdahar waxay soo sameeyeen designkan iyo dharkan baa loo soo sameeyey in dharkan iyo designkan loo soo sameeyo kow iyaga dharka gacanta ku dhigay funaanad walba qiimay ku joogta qiimaha ay ku joogtay ee shirkaddu ugu soo sameysay iyaga qiimo faa'iido u saaran suuqay gali suuqa markay gasho shaqo abuur bay ka helayaan oo lacag faa'iido ka helayaan faa'iidada markay ka helaan mar labaad dalab bay sameynayaan mar saddexaad taasi ku soconaysa kooxdii kubadda Qabdahar maamulka magaalada Qabdahar kubadda cagtana waxay u noqonaysaa dhaqaale u soo xarooda dhankooda waxaa iyaguna waraysanay madaxafseedka dhalinyaradii ciyaare ee maamulka magaalada Qabdahar iyo gudoomiyaha xiriirka isboortiga ee maamulka magaalada Qabdahar dharkan macnaha macluumaadka kaliya ee magaranaysa aan u baahanahay waxa weeyaan inaan ka maarano inaan hadda kadib dhar dambe oo maxaan ku dhahay ciyaartoyda caalamka dharkooda sida Barcelona oo kale Real Madrid Liverpool Arsenal Chelsea inaan hadda kadib aan ku ciyaarin oo dhar loogadanada magaranaysa maamulka magaalada Qabdahar loogadeeda ku taalo inaan hadda kadib ku ciyaaro iyadoo aan ugu talagalay maamulka magaalada Qabdahar kooxda xulka kubadda cagta maamulka magaalada Qabdahar in home iyo away gooda ay noqon doonto dhar macnaha ka turjumaya loogada macnaha magaranaysa maamulka magaalada Qabdahar sidii hadda ka hor aan kooxaha caalamka uga soo gadan jiray dharkooda oo kale oo loogada ka turjumaysa maxaan ku dhahay maamulka magaalada Qabdahar guud ahaan maxaan ku dhahay xafiiska deegaanka magaranaysa isboortiga uu isaguna macnaha kaalin xaalada isaguna uu ku leeyahay